الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلو الباجوكتان إلهي سبحانه وتعالى ayaa mahad oo dhan iska leh. Allaahumma laka alxamdu. Ilaaha ina soo gaarsiiyey bishii naxariista, bishii dambi dhaafka, bisha naarta la iska xoreynayay. Ilaaha ina soo gaarsiiyey baa mahad iska leh. walaalayaal, adduunyadeenna markaan fiirino dadka ganacsada waxaa jira waqtiyo faa'iidadu aad ay u badan tahay. Si marka faa'iidada ugu badan loo helo waa la isu sii diyaariyaa waqtiyada noocaas oo kale ah. qofku wuu sii qorshaystaa. faa'iidadaasi aan ka hadlayno waa faa'iida adduunyeed. mataacun qaliil, waa raaxo yar oo dhammaanaysa. qul mataacu dunyaa qaliil, raaxadu adduunku way koobantaho way yar tahay. banuu maa sakanuu jamacuu maa akaluu, guryaha aan adduunka dhisnama degno waan ka dhimannaa. xoolaha adduunka aan aruurinana waa ka dhimannaa, waana laga dhaxlaa. sidaasi ay tahayna adduunyada waa ku dadaalnaa, waa isu diyaarinaa. hadda marka bishan khayrkeeda iyo barwaaqadeeda iyo barakadeeda qofkii ka faa'iidaysta oo hela, sababna ay u noqoto inuu jannada galo, camaashii wanaagsan uu sameeyey bishan, walaalayaal, jannada dhexdeeda waxaa la dhihi doonaa inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada. weligaa noolo ha dhiman, khaalidiina fiiha abada. allahu akbar. hadda marka haddii bishani ay tahay bil khayrka noocaas oo kale xambaarsan ee aan akoonkeena aakhiro ku buuxsan karno, waxay naga rabtaa marka inaan isu diyaarinno, sidoo kale inaan u qorshaysanno. waxay kaloo u baahan tahay inaan ka faa'iidaysanno. qofaan qorshe samaysanno isdiyaarininne hadda faa'iidadiisa sidii la rabo ma noqonayso. walidaalika waxaan rabaa dhowr qodob inaan uga faa'iidaysanno videogan, sida aan u qaadan lahayn ama aan uga faa'iidaysan lahayn faa'iidatan ugu badan bishan ramadaanka khayrka ay xambaarsan tahay. waa aragteen dadka in badan wayse sii diyaariyaan, way soo adeegtaan, cunooyin kala duwan iyo cabitaano kala duwan ayay la yimaadaan guriga, ayay sii diyaariyaan say bisha ugu diyaar garoobaan. annaga sacaawa waxaan rabnaa inaan isu diyaarinno sidaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaan lahayn. ilan ramadaanka waa madarasa. qofka naftiisa markuu tababaro oo ma aragtay bishan ramadaanka uga faa'iideeyo, falacalla waxaa laga yaabaa bilaha kalena inay u fududaato inuu la yimaado al acmaal alsaalixa, camalada wanaagsan ilaahay raaligelinaya, inay bilaha kale inoo fududaanaan dhici karta sanadka qaybihiisa kale iyo sanooyinka kale. marka waxaan rabaa dhowr qodob oo nafteena aan ku tababarayna bishan inaan idiin soo gudbiyo. walaalayaal, qodobka koowaad aan raba inaan idiin soo gudbiyo waxay tahay inaan ilaahay in badan barino, in ilaahay subxaana wa tacaala sanooyin badan iyo ramadaano badan inuu ilaahay ina waafajiyo inaan gaarno. waa inaan ilaahay weydiisanaa, lianno ducada naftarkeeda waa cibaado. salafkii wanaagsanaa ee inaga horeeyay raxmatullaahi calayhim waxay ahaayeen dad ilaahay mar walba barya, weydiista inuu ilaahay gaarsiiyo waqtiyada khayrka noocan oo kale ah, bisha barakaysan. markii ilaahay gaarsiiyana ilaahay waxay weydiisan jireen acmaasha wanaagsan ay la imaanayaan bishan gudaheeda, ilaahay waxay weydiisan jireen inuu ka aqbalo. allahu akbar. ilaahay marka waxaan weydiisanaynaa inuu in badan ina gaarsiiyo, ilaahayna naga aqbalo biidni illaahi tacaala, ina waafajiyo inaan shaqo iyo camallo ilaahay raaligelinaya inaan qabanno bilaha noocaas oo kale iyo mar walba nolosheena intaan noolnahay. walaalayaal, waxaa la rabaa inaan ilaahay in badan u mahad celinno, liannahu dad badanoo sanadkii lasoo dhaafay isla tukan jirnayo, meel isla wadaba joognay, baa sanadkan ramadaanka soo gaarin, maantana adduunyada isaga tagay oo ka geeriyooday. haddii marka anigii adiga ilaahay fursad ina siiyey inaan noolaanno, waa inaan ilaahay u mahad celinnaa in badan, in ilaahay fursaddaasi uu ina siiyey. wallaahi dad badan maanta ee adduunka ka tagay haddii la weydiin lahaa, la dhihi lahaa maxaa jeclaan laheedeen,
hal saac oo ramadaanka xataa fursadii la siiyo way jeclaan lahaayeen. adigu samaanta ilaahay waxaa laga yaabaa 30 maalmood inuu ku siiyo 24 saac inuu ku siiyo maalin walba iyo habeen walba ama sanooyin fara badan ilaahay fursad ku siiyo. ka faa'iideysa biidnillahi ta'ala fursada noocan oo kale ah. ilaahayna uga mahad celi in cimrigeena uu dheereeyay. allahumma lakal hamd. waxaa la rabaa sidii salafkii saxaabada ridwaanullahi calayhim igu farxi jireen in anagana ugu farxno in ilaahay subxaanahu wa ta'ala waqtigii khayraadka iyo barakooyinka inuu ilaahay ina soo gaarsiiyey. wax ka farxad badan ma jiro maanta in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina soo gaarsiiyey yani waqtiga noocan oo kale ah. dadka haddii adduunyo ku farxaan xilliyada faa'iidooyinka adduunka ay ku farxaan, annaga waxaan ku farxaynaa waqtiyada aan faa'iidaday aakhiro aan kororsan lahayn in ilaahay ina soo gaarsiiyey baan ku farxaynaa. haddaba waxaa la rabaa marka inaan qaadano go'aan oo aan meel ku qoranno jadwal iyo u diyaargarow iyo qorshe sidaan bishan uga faa'iideysan lahayn. 24 saac sida uga faa'iideysan lahayd, waqtiga ku soo maraya sida uga faa'iideysan lahayd, haddaba inay meel kuugu qoran tahay. markii ilaahay niyadaada u arko, qalbigaaga u arko, daacadnimadaada u arko, biidnillahi ta'ala ilaahay wuu kugu kaalmeyn doonaa. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha wa kunuu maca asaadiqiin. haddaan ka run sheegno waxa aan rabno bishan inaan samayno, ilaahay wuu inoo fududayn doonaa biidnillahi ta'ala. haddaba marka qorshe u samayso maalinkaaga, marka la saxuurto ilaa iyo saxuurta kale sidee buu waqtigaaga noqon doonaa? imise juso qur'aan baad akhrin doontaa? taraawiixda intee ku tukan doontaa? meeqa ayaa ku tukan doontaa? goormee baa ilaahay dambi dhaaf weydiisan doontaa? goormee baa ilaahay weyneyn doontaa? astaghfirullah, subxaana allah, laa ilaaha ila allah. waqtiyada aad ilaahay xusaysid, waqtiyada aad ilaahay baryi doontid, ee aad mashaakilkaagii problemkaaga ilaahay u bandhigi doontid, ood ilaahay weydiisan doontid khayraadka, shartana ilaahay aad ka magangeli doontid, haddaba inay kusii qorshaysan tahay. haddii marka qorshahaaga qorshe noocaas oo kale uu noqdo, qalbigaagana ilaahay uu arko inay daacadkaa tahay, ilaahay wuu kuu fududayn doonaa biidnillahi ta'ala. walaalayaal, waxyaabaha naga maqan waxay ka mid ah waqtiyada noocan oo kale ah ee faa'iidadeedu ay tahay khaalidiina fiiha abada, markaa jannada galno biidnillahi ta'ala, ee camalka aan samaynayno uu yahay camalkii aan jannada ku gali lahayn. hadda waxyaabaha ilowna waxaa ka mid ah camalka aan qabanayno inaan aqoon u lahayn. hadda waxaa loo baahan yahay marka inaan baranno axkaamta soonka, inaan fahamno ayaa loo baahan yahay. لأن واجباتك إلهي إنا صاري جهل إلهي سبحانه وتعالى كما عبدي كرني أقول الآن وإن إلهي أقومك عبدنا إلهي بائنا له فاعلم أقو برأ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقل ربي زدني علما. إله علمي الزيادة له وقل ربي زدني علما. سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم وإن إليه طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا علمي كان وعلمي إلهي أن كبران لهين، وعلمي أن جنة كقل لهين، وعلمي أن كهل لهين خالدين فيها أبدا ولقينا كوارا، وعلمي أن كهل لهين إن ولقينا النمع يسنو لن يراها أن مكان جنة قلنا بإذن الله تعالى إن ولقينا لهين عافمات قبنا أو أن حنوسا إن ولقينا نولانو أو أن لمن بان جنة كهل دونا. هذا علمي أكو جاري لهين، شقدي أكو جاري لهين. هذا أقونين ود إلهي جاهل لما كعبد دباته. الدنيا دي نوان احترامنا قف ما انت باور ما كحين كر إلا إنه ليسن هيستمعني ليسن لما قادن كر إلا إنه أقوم برتماحنا. وهكذا تخصصات كأدون كونن علم إيه جامعة الله قرأس أو شقيسي، لكن تخصص كان صونك صلاة واجباتك إلهي إن السعي هذا برشين نجربته سي إلهي إنه أقبله وإن إلهي سيدي إلهي الرالي كأها أما سيدي إلهي الرالي قلينيس أما قابك إلهي الرالي وكن قلها وإنهم برنا سأن إلهي أقعابدنو علمي إسأل إلهي وعابدنا بإذن الله تعالى. ولا ليال وحياوها اللو باهنيا وحاكمة بشان إن نقف إلي سنة لأنه رمضان كوا مدرسة قفك نفتي سأيكو تربيانا نفتي سأيكو توبرا مركب وحن أباهنها إن كأن رمضان كان بإذن الله تعالى رمضان كي نلا شيء بدل الهاب رمضان كأن إلهي أولا من لهن إلهي أتوبت كأن لهن ومركب إن سيد ياسن قرشو إن إلهي مركز أتوبت كأنه haddana ramadaanka inaan toobadda iyo ilaahay u noqoshada inaan kordhinno ayaa loo baahan yahay. inaan ilaahay dunuubteena oo idil uga toobadkeenno, go-aanna ku qaadanno mar dambe inaan dunuub u laabanin biidni illaahi tacaala ayaa loo baahan yahay. qofkaan ramadaan toobadkeenin hadda xilligoo toobadkeenayo ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa og.
ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo. bal ilaahay wuxuu la hadlay fiiri mar walba ilaahay wuxuu dhahay watuubuu ila allahi jamiican war kulligiina ilaahay u toobadkeena ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. si fiican u fiiri sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray qofka mu'minka ah ayuu ilaahay amray inuu toobad keeno. allahu akbar. toobadana waxay ku xiran tahay guusheenna iyo liibaanteenna adduunyo iyo aakhiraba waxaa lagu xiray toobada. qofka mu'minkana waa la amray inuu ilaahay u toobad keeno, ilaahay u laabto, laannu guushii aakhiro iyo guushii adduunka ayay ku xiran tahay toobada, inaan ilaahay u toobad keeno. haddana usii fiirso nabigeena sala allahu calayhi wasalam oo ahaa khayru khalqillaahi, maalintii imase jeer buu ilaahay u toobad keeni jiray. maalinkii ilaahay wuxuu u toobad keeni jiray wuxuu dhahay la astagfiru allaha fi lyawmi 100 mara, 100 jeer baan ilaahay u toobad keenaa oon dambi dhaaf weydiistaa. xadiid kale wuxuu ahaa wallahi inii la astagfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyawmi akthara min 70 mara. ilaahay waxaan u toobad keenaa, ilaahay toobad iyo dambi dhaaf weydiistaa maalinkii ayuu leeyahay nabiga sal ly salam in ka badan 70 jeer. hadda anigii adiga xaalkeena sidee buu noqonayaa? dunuubteena iska fara badan tahay. hadda marka bishaan aan ka dhiganna bishii aan ilaahay u toobad keenaynay. waxaa la rabaa nafteena inaan ku tababarno waajibaadka ilaahay ina saarsa uga soo bixi lahayn. dadka qaar waxaa laga yaabaa salaada inay waqtigeeda ku tukadaan inay ku adag tahay. waxaa la rabaa bishaan inay noo fududaato salaada oon qorshaheena ku darno sidaan salaada ilaahay ku tukan lahayn, waajibka ilaahay ina saar uga soo bixi lahayn, bal inaan sii ziyaadsanno oon sunnooyinka xitaa aan nafteena ku tababarno inaan bishaan tukanno baa loo baahan yahay. bishaan waxaa loo baahan yahay nafteena inaan barno inaan noqonno والذاكرين الله كثيرا والذاكرات dadka ilaahay xuso mar walba xasuusto inaan noqonno baa loo baahan yahay. inaan bishaan nafteena ku tababarno sadaqa bixin baa loo baahan yahay walaalayaal, oo aan ka dhiganno shahru sadaqa. waxaa loo baahan yahay walaalayaal nafteena inaan ku tababarno inaan bishaan intaan awoodno qur-aanka aan khatimno akhrino. haddii marka bishaani aynoo noqoto bil nafteeni aan barno aqrinta qur-aanka, ذكرك إلهي سبحانه وتعالى، نفتينا برد إن صلاة سيدي إلهي رالي كو أها أن كنا قلنا إلهي كنا قناي رالي وكنا قناي إن أتوكنا هذا نفتينا كتب برنا ولا ليا سنوين كلا إيماننا بإذن الله تعالى. رمضان ككذب حتى نفتينا وحين قمدون تا نفت ببرن أفضل إني وناك سميسو شرطنا كفوقاته، وإن بشان كتب برنا حتى إن شرط كفوقنا بإذن الله تعالى، ذنوبتنا كفوقنا سي أي مر والبا noogu fududaata haddii ilaahay idmo insha allah. walaalayaal waxaa laga yaabaa ramadaankan dadka inta badan inay guryahoodii ku tukanayaan, ay guryahoodii joogaan. hadda marka waxaa loo baahan yahay marka waa fursad in guriga ilahay subxana wa tacala lagu xuso, in la wada fadhiisto, diinta ilaahay la wada aqristo, ilaahay la isxasuusiyo, oo aan samaysana duruus biidni illahi tacaala. intii guryaha walaalo la joogaan ama caruur u joogaan ama intii xataa dadka la tujiso, waa inaan bishaan ka dhiganaa bishii aan duruusta nafteena bari lahayn, xalaqaatu dikri ilahay inaan xasuusanno xusno, laannu meesha ilaahay lagu xusaaya waa meesha malaa'igta ay hareerayso, naxariista ilaahay waa kusoo degta, deganaan baa meeshaas kusoo degta. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u dambi dhaafa markay dhammeeyaan xusitaanka ilaahay ay xusaayaan. ilaahay wuxuu dhahaa quumuu maqfuuran lakum qad budilat sayi'aatikum ilaa xasanaat. ilaahay wuxuu leeyahay waa idiin dambi dhaafay, istaaga, xumaantiina ajir baa lagu bedelay, waa riyaadu ljanna, waa beer jannaad. marka waxaa ka wanaag badan guryaheenna inaan ku tukanno, ay guryaheenna noqdaan beer jannaad, meeshii naxariista ay kusoo degaysay, meeshii malaa'igta ay joogtay inay guryaheenna noqdaan. maanta maxaa ka macaan oo ka qurux badan? marka waa inaan qorshayaasha ku darsannaa, xilliyo aan ilaahay isla wada xusuusanno, duruus aan wada baranno, inaan sii qorshaysanno. qofkii awoodo waa inuu ka fikiraa walaalihiisa sooman ee adduunyada qeybaha kale jooga ee maanta waxba haysanin. qaar bandoowa lagu soo rogay, shaqooyinkiibaa ka istaagay. waa inaan xasuusannaa, leanno ajirka ay leedahay qof sooman inaad afurisid, ajirka ay leedahay waxay tahay inaad ajirkiisao kale heshid, isagoon qofkaasi ajirkiisa waxba laga nuqsqaaminin. marka waa inaan qorshayaal samaysannaa biidni illaahi tacaala, oon ilaahay ugu dhowaano acmaashaasi wanaagsan, ilaahayna aan weydiisanno inuu inoo fududeeyo. liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu kula dardaarmay mucaad, wuxuu dhahay uusiika yaa mucaad, mucaado waxaan kugula dardaarmaa inaadan weligaa ka tagin salaad kasta markaa ka baxdid kadib inaad tiraahdid allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. aan ilaahay weydiisanno inuu inoo fududeeyo sidaan ilaahay u xusi lahayn, qur-aanku u aqrin lahayn, ahlu dikri u noqon lahayn. waa inaan ilaahay weydiisanaa inuu inoo fududeeyo
dadka ilaahay u mahadnaqa mar walba inaan noqono ilaahay caabuda sida ilaahay raalli u ku noqonayo u caabuda inaan noqono inaan ilaahay in badan weydiisanaa ilaahay inoo fududay allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni cibaadatik ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inaga dhigo miman saama ramadaana wa qaamahu iimaanan waxtisaaba ilaahay subxaana wa tacala hanaga wada aqbalo meel walbaa joogtaan kullu caamin wa antum bikhayr ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.